dibadbax ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee bulshada reer Buuhoodle ayaa maanta ka dhacday garoonka Xabada Stadium. dibadbaxan oo looga hadlayay Google xaadida shirka Khaatumo oo isagoo lagu wado inuu ka qabsoomo gudaha deegaamada Dhulbahante. munaasabadda shirkan ayaa ku soo aadaysa xilli ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Buuhoodle waqti ballaaran oo ka soo kiciitimay dhanka qurbaha isla markaasna guddida shirka qabanqaabada Khaatumo waxaa ugu horeyntii halkaasina ka hadlay gudoomiyaha qabanqaabada shirka Khaatumo Axmed Ducaale Cabdi. والسلام على عباده الذين اصطفى وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا رجل الضمر عروري عرولة وهي هجامية اسمها iyo madax dhaqameedyada uqaasha culimada diinka ururada bulshada ardayda aad iyo aad baan u salaamayaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. aad baan reer Buuhoodle ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta ayna soo dhaweeyeen haddaanu nahay waqtiga ka socda qurba joogta Dhulbahante. anigu qurba joogta ka socda waxaanu nahay qurba joogta Dhulbahante rag ay soo direen ama la soo xulay. waxaanu ku soo tabarucnay inaanu dalka nimaadno. waxaanu ka soo ballan qaadnay qurba inaanu soo gaarsiino dadweynaha Dhulbahante ee dhulka degan Soomaaliya. taasaanu u nimi shirka yagaas halkaa lagu qabtay ee ay isku afgarteen beesha Dhulbahante qurba jooggoodii yar iyo weynba. waxaanu jeclaanay inaanu halkan u soo gudbino ay idinkuna isku afgarataan si wanaagsanna aad nooga aqbashaan. waxaan idiin sheegaynaa haddii alla yidhi anagu waxaanu ahay 15 caawa maanta halkan baanu ku joognaa. laba ogaalka iyo jidka dhow bay ku soo jireen, labana jidka fog bay ku soo jireen. waxaan u jeedaa laba Afrika soo gashay, labada kalena waxaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وانو إذن سلامينا انت اسكدب سلامة اسلامك كدب وحان إذن كن محدينينا أما محد إلهي بالها أن إذن كن أمانينا حلق القرون رمضان أتبعتك هوسي ستبنتهين إذنك ونصوب بحينا نسود ويسان لغانا تغيستان أفكارتا أما أي وحي آنو إذن لنمي آنو لسعني waxaanu kaloo mahad u soo jeedinaynaa dhammaanba isimada waxgaradka uqaasha iyo aqoon-yahanada aanu la kulannay ee aanu horay isu aragnay. yaanu dhammaantood mahad soo jeedinaynaa. dibadbaxan ballaaran ee maanta ka dhacay magaalada Buuhoodle ayaa isagu ahaa dibadbixii ugu ballaarnaa ee abid ka dhaca magaalada Buuhoodle isla markaasna ay ka soo qayb galaan aqoon-yahaniin siyaasiyiin qurba joog iyo waliba waxgaradka qaybihiisa kala gedisan. Cabdulle Cabdixiis telefishinka caalamiga Hon Cable TV Buuhoodle.